Madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa lugeynaya wadooyinka magaalada Kiev, isagoo lugeyntani ay tahay fariin loo diray dalka Russia isla markaana ay muujinayaan inuu ku sugan yahay caasimadii dadka iyo dalka reer Ukraine aysan meelna u socon. Sidoo kale waxa uu booqday halyeeyadii ku soo dhaawacmay jiidaha hore ee dagaalka, isagoo isbitaalka gaarka ah ciidanka booqashadiisani ay ahayd mid lagu dhiirigelinayo halyeeyada ku soo dhaawacmay jiidaha hore ee dagaalka, taas oo loogu muujinayo garab istaag iyo in ay qabteen howlo qaran. Dhaawacyada ayuu madaxweynuhu u booqday isla markaana salaamay una duceeyay. Dhanka kalena waxa uu ku dhiirigeliyay dadka reer Ukraine dhammaantood inay nafta u hurayaan dalkooda, ay tahayna xilligii aan meelna loo kala socon taariikhduna ay wax qori lahayd dadka reer Ukraine sida ay uga difaacaan cadawga ku soo duulay dalkooda. Dunida waddan walba oo ka mid ah waxa uu sheegay inuu soo maray dhibaatooyin tan oo kaleeta iyo isku day gumaysi, taasoo waddanba si ooga baxo. Waddan walbaana waxa uu ku tiirsan yahay ayuu yiri madaxweynuhu dadkiisa. Dadku waa inay u dulqaataan isla markaana dhabar adeeg u muujiyaan xilliyada adag ee lagu jiro, taas oo ay ka dambeyn doonto barwaaqo iyo in cadawga laga guuleysta. Madaxweynaha ayaa booqashadiisan uu booqanaya isbitaalada iyo isla markaana sawir la geliyo dadka soo dhaawacmay ama askartii dhaawaca ahayd ee isbitaalada taalo ayaa waxay ka dhigan tahay dhiirigelin iyo garab istaag oo muujinaya madaxweynaha dalkaas Ukraine halyeeynimo iyo inuusan meelna ooga socon dadkiisa, isla markaana u ballan qaadayo dadka reer Ukraine inaysan dhammaantood si wada jir ah dalkooda iyo dadkooda ay u difaacdaan. Waxa uu sheegay in cadawga reer Ukraine isla markaana waxa uu doonsiiyay bilad sharaf ama bilad geesi askartii soo dhaawacantay dhammaantood, taasoo ay ka dhigan tahay in ay yihiin halyeeye qaran isla markaana ku naftooda u huray difaaca dadkooda iyo dalkooda. Waxa uu sheegay in taariikhdu xusi doonto mid walba adinka mid isla markaana loo halgamayo jiilka dambe samata bixintooda aysan ahayn waqtiga maanta lagu sugan yahay oo kaliya. Madaxweynaha ayaa booqday qaybo ka mid ah isbitaalka, gaar ahaan qaybta qalliinka, isagoo arkay halyeeye soo dhaawacmay ciidamadii soo dhaawacmay qaybo ka mid ah qaybahaas oo operation lagu sameeyay iyo isla markaaba kuwa kale oo saalada qalliinka saaran. Madaxweynaha ayaa booqashadiisa isbitaalka waxay uga dhigneed dhiirigelin iyo garab istaag ugu weyneyd. Madaxweynaha ayaa sheegay in ka badan 1700 oo qof oo askari reer Ukraine ah iyo dad shacab isugu jiraan in ay ku dhinteen dagaalkan, isla markaana tiro kale oo inta leeg ay ku dhaawacmeen. Booqashadan madaxweynaha ayaa waxay ka dhigan tahay si walba loo duqeeyo dalka Ukraine, si walba oo sawaariikh madaafiic Russian kula dhacaan inaan marnaba guryahooda loo dumiyo qalbiyadooda la dumin karin. Fadlan